magaalada Hargeysa oo aan ku noolaa in ka badan 20 sano markii ugu horeysay waxa laga furay kambaniyo caalami ah oo dhanka cuntada ah kuwaas oo aan filayo markaad aragtaan in aad ba tagteen qaarkiin asxaabteena aan ku xidhnayn barteena YouTube waxaan leenahay marka ugu horeysa fadlan subscribe noo saara YouTube-keena Ayub Show si muuqaalkeenu u gaaro meel aad u fog iyo asxaab kale oo badan ila soco muuqaalka oo cajiibana dhamayso fadlan adiga ayaa yaabi doona وقار كمية شركتها وواوين cuntada caalamka kuwaasi oo xarumo ku leh boqolaal goobood isla markaasina markii ugu horeysay noqonaya shirkado caalami ah oo imaado 30 sano kadib magaalada Hargeysa shirkadahani ayaa waxay yihiin kuwa kor u qaadaya koritaanka horumarka ganacsiga guud ahaan magaalada Hargeysa waxaana ay shaqaabo u sameeyeen boqolaal dhalinyaro waxaana haatan booqanaya hoteelkan oo xarumo ku leh 450 goobood guud ahaan dunida shaqaalaha maqaaxidani oo ah mid caalami ah kuna taala magaalada Hargeysa kuwaasi oo badan dhalinyar ayaa markii aan booqday waxaan kala kulmay soo dhaweyn aad u badan Ismaaciil oo ka mid ah mas'uuliyiinta Baabarooti Hargeysa ayaa ka waramaya dareenka ay leedahay inuu mas'uul ka noqdo shirkad caalami ah oo dhanka cuntada ah kadib 10 sano oo ku jiray suuqa maamulka hoteelada iyo maqaaxiyaha waa tahay bal Ismaaciil waxaad iga warantaa كمبنيغني وكمبنيغي ugu horeeyay ee caalamiga ee cafe shop ay naga furay magaalada Hargeysa runtii kafeeyo fara badan oo horena wad ka soo shaqeysay kana waxaad ka mid tahay maamulkiisa bal dareenkaaga ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim ayuu yaray aad iyo aad baad mahadsan tahay booqashada aad soo booqatay hoteelkan branka internationalka ee Baabarooti runtii Baabarooti wuxuu kaga duwan yahay hoteelada kale aan joognay waa hotel international oo 7 dal oo adduunka ka furan nacamtii maskax badan iyo fikir baa ku baxay sidii aynu dalka Soomaaliland looga furi lahaa inaguna aynu nasiib aan u yeelan lahayn shaqaale ka noqono kulka aad iyo aad waxaanu sameynaa wax brana oo aan magaalada lagu sameynin oo aanu gaar anagu leenahay oo runtii aad arki doonto mar dhow shirkadaha wadanka iman doonana waxay u tahay iba fur iyo aragti dheer in kambanigayga insha Allah bidmillaahi kariin lagu daydo oo kambaniye badan oo noocan oo kale ay yimaadaan laakiin anagu waxaanu gaar leenahay Baabarooti iyo chicken way waxaad iga warantaa Ismaaciil dad fara badan baad kulli qurbo joog fara badan baad dalka imanaysa dad baa laga yaabaa Dubai inay ka yimaadeen qaybtiina kale Baabarooti Dubai arkeen dadka noocaasi oo kala markay yimaadaan halkan ay ku soo noqdaan bal dareenkooda ka waran runtii waxaan la kulanay anagu dad badan baan la kulanay oo caalamka daafihiisa ka yimid nacamtii waa isku mid baa lagu leeyahay Thailand kan ku cunay iyo kan Muqdisho ku cunay iyo kan Dubai ku cunay iyo ka imkaan tasay weeyaan kulka anagu waxaan nahay dad hal mar iyo wax qurux badan oo markaliyaata sameeya ayaan nahay hadaan nahay Baabarooti dadkoo dhan wax leeyahay ku soo dhawaada aad u mahadsan Ismaaciil asxaabta halkan aan ku suganahayna waxa weeye mid ka mid ah shiraa'iga caalamiga ee markii ugu horeysay yimi magaalada Hargeysa ayubahan waxaan filayaa inay tahay maqaaxidani Baabarooti magaaladii labaad ee aan adeegyadooda ama cuntadooda aan ka cuno magaaladii hore waxay ahayd magaalada Muqdisho oo runtii tiimku si fiican ugu soo dhaweeyeen isla cuntooyinkii aan ku cunay magaaladaasi iyo Dubai iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah waxaan maanta iyagana ku cuni doonaa magaalada Hargeysa tani waxa ku tusaysaa sida maalinta ka dambaysa horumarka magaalada Hargeysa uu ula jaan qaadayo kuwa wadanada kale dunida معي الحمد لله هذه كسر عتيق ما حفلة انتصرني تهاي والسيم تيست وين مقالين فربضان هرو الدنيا كم إذا عن سومرينا بانكين رأي عتشيبك أيها استجنا كسرعني وانا كمبني يجور رأي international أما عالمية أيوبهان
maanta aan wax ku cunayo kaasi oo ku yaala magaalada Hargeysa abta tastu waxta waa ajiib waa same taste goobtani ayaa waxay ka mid tahay in ka badan 400 oo goobood oo ku yaala guud ahaan caalamka kuwaasi oo dukaamada cuntooyinka baanka iyo shaaha ee Paparotti loo yaqaano ayuubahan 400 ee goobood waxa ay tahay goobtii labaad insha Allah safarkii ku xigana waxaan tagi doonaa dal kale hadii ay beedmo listigana way ugu jirtaa inaan booqdo dukaankani Paparotti dhanka kale waxaad dareemaysaa in horumarka ka socda magaalada Hargeysa uu yahay mid xawliya maadaama qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee caalamku ay markii ugu horeysay xarmo ku yeelanayaan magaalada Hargeysa anigii bulshada Hargeysa taasi farxad weyn bay noo sameynaysaa 12 sano ka hor way adkeyd inaanu helno waxa aan rabno ee caalamka yaala hadda sirriyadaas way rumooday asxaabta qaybo kale oo cajiibina waxaan jeclaan lahaa oo ka kooban yahay dukaankan Paparotti oo ku yaala magaalada Hargeysa waxaan jeclaan lahaa nala eegtaan qaybaha kale abti waxa weeye qaybtani ayuuba waa qaybta ugu raaxada badan ee ay dadku noogu yimaadaan ee laydhale open air weeyaan qaybtan way ka furan tahay galbeedka qaybta bariga way ka furan tahay waa qayb runtii lagu raaxaysto wiilasha gabdhaha odayaasha dadka arrimaha gaarka ah leh dhammaantood waxay yimaadaan halkan oo ay ku qaataan naacow macaan oo aan lacag lahayn gurbajoogta kala duwan kuwaasi oo imanaya Hargeysa ayaa ka waramaya dareenka ay leedahay dukaanna ay dunida macmiiligu ahaayeen oo haatan adeegyadooda ay ka helayaan magaalada Hargeysa ما شاء الله تماها كفايغان oo qura ee waxyaabo badan oo ay Somaliland ama magaalada Hargeysa ka horumarsan tahay ayaa jira kafaygan waxaan ku arki jiray Dubai wuxuu ku yaal Dubai adigu dhowr meelood buu ku yaalaa branch ku leeyahay maanta markaan Hargeysa ku arkay waxaan idhi yani Hargeysa say u horumarsan tahay waxaan idhi Paparotti ma ku yaalaa kan ku yaalaa marka ma sha Allah wadanku aad iyo aad buu horumaray oo uu gaaray tadawur u gaaray marka ma sha Allah leenahay hore u wada dadka maaragtay furanaya wax ee wadankii wax ku soo kordhiyay ama qurbo joog ha ahaadaan ama wadanka ba ha joogaan ee wadanka wax ku soo kordhinaya waa dad aad iyo aad u aqli badan ama wadankooda doonaya inay horumariyaan marka ma sha Allah waxaanu leenahay cid kasta oo maal gashanaysa wadanka welcome baan leenahay soo dhawaada sida qolooyinka Paparotti oo kale iyo qaar kale oo lamid ah soo dhawaada wadanka wax ku tara oo ka furta intaasi kadib waxaan booqday maqaaxidani cunto oo iyaduna ah mid caalami ah taasi oo xarumo ku leh in ka badan 265 goobood oo ku yaala 35 wadan guud ahaan dunida Nuruddin oo ka mid ah mas'uuliyiinta Chicken Hargeysa ayaa ka waramaya dareenka ay kala kulmaan bulshada marka ay bulshadu arkaan shirkadahani ah kuwa caalami ah oo ay ku arkeen wadamada dunida kale waxa garabkayga taagan Nuruddin oo ah maamulaha Chicken Nuruddin bal waxaad nooga warantaa Chicken oo ah company caalami ah oo maanta soo booqanay bismillaahir rahmaanir rahiim ayuuba marka hore waan ku soo dhaweynaya walaal sida aad sheegtay horta waa company caalami ah runtii waa company caalamka oo dhan ka furan wuxuu ka furan yahay 35 waddan ka badan isla markaana isagoo ku leh 256 goobood in ka badan marka runtii dadkeenu waxay aad ula yaabaan ama qurba ka yimi ama waddanka waxyaabo adeegyada ka heli jireen adduunka sida Dubai oo kale meelo ka badan soo mara adeeg la mid ah ka hela oo runtii tastigii iyo quality-giisa la mid yahay runtii waxaad arkaysaa waddankeenu iyagu koritaanka uu sameeyo iyo horumarku sameeyo taasoo ka qayb qaadanaya dadkeena iyo bulshadeena ganacsatada ah
runtii waxaad arkaysaa maalinba maalinta ka dambaysa dalkeenu halkii uu shalay taagnaa inuu meel ka sii horreeya tegayo taasina runtii waxay sababaysaa horumarka iyo koritaanka waddanku samaynayo kolley wuxuu kusoo kordhiyey oo dadku aad uga helaan quality-ga si fiican oo wixii adduunka ay ka helayaan ka helaan waxa kaloo asxaabta aad iyo aad u muhiima in chicken in uu ku taalla xaafadda calaamadda ee magaalada Hargeysa si la mid ah sida loo qurxiyey ee loo qaabeeyey ay ugu yaalaan chickenada kale guud ahaan magaalooyinka kala dunida sida Dubai, Jeddah iyo magaalooyinka kale caalamiga ayugo waa sidaas sheegtay walaal horta waxaan marnaba isbedelin oo dadku aad ula dhacaan runtii sidaan hore kugu soo sheegay cuntada tastiga dhadhankeedii oo sidii ay dadku ku barteen ee adduunka ama Dubai ka helayaan ama meelaha kale ee wadamada la aqoonsan yahay taa waxa labaad oo soo raaca dhisaynka iyo qaabka ay u samaysan tahay oo runtii wixii ay ku soo barteen ama ay ku helayeen haday furniture-kan iyo quruxda ay noqoto si la mid ah ay mar walba u qalabeysan tahay marka runtii waa company weyn oo dadkuna aad u jecel yihiin dadka waliba dadkeenu wali wadankeenu oo koraya waa baranaya laakiin dadka sida hore u sheegay ama qurba ama adduunka ama maray soo maray runtii aad uga helaan marka runtii waa waxyaabaha growing oo wadankeenu samaynayo marka wax aad loogu farxo aniga waa markii labaad ee chicken ka cuno waa magaaladii labaad magaaladii hore waxay magaalada Muqdisho safar ku joogay chicken ma ka cunay design-ka sidoo waxa everything wax kasta siin bihaa cuntadana hadda ayaan dalbaday iyadana moogta talafteedu waa horumar kala cajiib nuuridi waxa jeclaan lahaa sidoo kale nooga waranto bal dareenka ka waran dadka soo tijaabiyay cuntooyinka kale iyo magaalooyinka kale ee waxa weeye chicken ku taalo markay Hargeysa yimaadaan والله أيوه دتكين قيمه هذا كله دوان وكنت كستمر بينه يوم نقود حري ولما دتك أوجو بدني دتك يعني قرب الشوكة إنه قوي مكان كل وقت يجي قرب الشوكة لقلي هذا من طنان تيار على وطن كثير رجينه دتكين إنك على وطن ككونه والله كنت وأدي كان أدب وجهلا أو معلومة بطل أصب أو فربضان أو دتكين كله دوان ينو يماده marka waa adeeg runtii aad u dhaweeyaan wadankan oo baahnaaye waxa weeye meeshii oo aan noqoto sida aad arkayso nadaafadeedii ama wixii kaleenskeeda aad u fiican yahay adeeg iyo runtii quality-giisa aad u wanaagsan yahay dadkii runtii feedback-gan ugu soo celiyay waa boqolkiiba iyagoo si fiican uga helay kuna faraxsan wadankooda waxa ku soo kordhaya maalinba maalin ka dambaysa oo saroosinka in badan baad ku noolay magaalada Hargeysa dawadeed sanadba sanad ka dambeeyay horumarku aad u kordhayay bal maanta oo chicken aan dhex joogno waa company caalami ah bal dareenka ka waran sanada ka hor way adkeedin la helo company caalami ah soo kala maanta ayugo walaal waa saa sheegtay runtii wadankan maalinba meel buu taagay laakiin halkii uu shalay taagnaa maalin walba maalinta ku dambaysa hore uga sii dhaaqaya runtii company caynkana oo international la yaqaan hore uga jirin wadankeena cuntooyinka aanu sameynay waliba darayga ee fast food qofku markuu dalbado ayaa loo sameynaya wayna ogeeno cunto si taala qofka loo sameeyay tanna waxay ka qayb qaadanaysaa cuntadii fresh inuu qofka helo runtii waxaan arkaynaa tawadarka oo wadankeenu sameeyay iyo horumarku sameeyo runtii maalgelinta lagu sameeyo ay waliba dadka inta badan haday noqoto ganacsatada ay ku soo dhiiranayso wadankeena wax cusub keenaan marka waa arrin aad iyo aad u soo dhaweyn runtii waxaan u dirayaa qurba joogta iyo dadkeena kale cid kasta reer Soomaaliland iyo ummadda kaleba Soomaaliyeedba runtii qof walba inuu wadankiisa aamino wixii uu aqoon ahaan ama wadanka kale ku soo arkay ama uu ka bartay ama waxyaabaha uu isleeyahay wadanku u baahan yahay qof walba inuu keeno runtii waana wax shaqaynaya oo si fiican u shaqaynaya mashaariicda wadanka la keena marka waxa la wadankiina ku soo dheerida isoo fiican ku qaba horumar fiican wadankeena sameynaya sanadaha soo socda ayuu hadii noolaana insha Allah waxaan u joogi doonaa wadankeena ee adduunka la talaabsaday aad iyo aad u mahadsantahay Nuuridiin mar labaad iyo mar kale idin rajeynaya hadii ay beedmo magaalooyin kale dunida ay la socdo hadii ay beedmo Dubai ka mid tahayna liiska way ugu jirtaa inaan booqdo chicken ay mar labaad soo dhawo aad baa mahadsantii waad ku mahadsantahay booqashadaada oo soo dhaweynaa thank you very much okay way bra ayubahan booqashada shirkadahan caalamiga oo xarumo ku leh magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid cajiib ah si weyn ay farxad gelisay dhanka kalena waxay shirkadahani qayb ka noqonayaan horumarka dhaqaale ee ka socda magaalada Hargeysa imaanshaha shirkadahani ee guud ahaan Hargeysa ayaa waxay noqonaysaa mid horseed u noqon doona shirkado badan oo caalami ah oo kale inay maadaan guud ahaan magaalada Hargeysa wuxuuna waa iibsho lana socon muuqaal cusub